بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka baranno weydiintana what is a company restructuring. waxaan ku qeexi karnaa company restructuring in ay tahay in dib u habeyn xooggan lagu sameeyo kala sarreynta shirkadda ama qaabka ay shirkadda u howlgasho ama sida guud oo ay shirkaddu u shaqayso. waxaana dib u habeynta loo sameeyaa in sare loo qaado waxqabadka shirkadda ama inay la jaanqaado isbeddelka xaaladda suuqa. markana aan isla aragno qayb ka tirsan sababaha keena in dib u habeyn lagu sameeyo qaabka ay shirkadda u howlgasho waxaana ka mid ah 1. Financial stress, sida in dakhliga shirkadda uu hoos u dhaco halka qarashaadkana ay sare aadaan, shirkaddii oo lagu yeesho deyman badan oo haddii aanan xaaladda ama qaabka ay shirkadda u shaqayso wax laga bedelin ay iman karto in shirkadda oo dhan ay burburto iyo wixii la halmaala oo xaalad maaliyadeed culus ah ayaa keenta in dib u habeyn lagu sameeyo shirkadda. 2. Merger and acquisition. hadda ka hor ayaan kasoo hadalnay micnahooda ay fadlan ka dhegeyso lifaaq hoose. marka ay shirkad ku milanto ama ay gadato shirkad kale waxaa lagu qasban yahay in dib u habeyn lagu sameeyo shirkadda cusub oo meeshii laga saaro xilalka ka jira labada shirkadood. tusaale, shirkad waliba waxa ay lahayd waaxda HRM-ka, waaxda financiga, waaxda marketingka iyo wixii la halmaala. haddaba waa in dib laiskugu shaandheeyo waaxyada isleh lana gaaro synergy. micnaha synergyna fadlan ka dhegeyso lifaaq hoose. 3. waxaa kaloo keena in dib u habeyn lagu sameeyo marka ay shirkadda hiigsanayso inay hormariso qaabka ay u fuliso howlaheeda, sida inay hirgeliso tiknoolajiyad cusub oo ay rabto inay hoos u dhigto qarashaadka, sida tusaale ahaan oo kale in jaamacadihii ay isticmaalaan si ardada loo xaadiriyo basmada farta oo kaleeto ama isha, oo meeshii ay ka baxdo in warqad la daabaco oo marna qarash ah marna aan u roonayn environmentiga ama dunida. gunaanad, hadafka ugu weyn ee laga leeyahay in dib u habeyn lagu sameeyo qaab dhismeedka shirkadda ama qaabka ay u howlgasho shirkadda waa in la yareeyo qarashaadka, sarena loo qaado faa'iidada ay shirkadda soo saarto, sidoo kale inay la jaanqaadi karto isbeddelka ka jira industriga ay shirkadda ku howlgasho. mahadsanidin, waa inoo markale haddii rabbi idmo.